ninbaa wuxuu igu yidhi wixii kuugu xumaaya qaad kula kaa soo maray ii sheeg baan ku dha wuxuu yidhi markaasaa waxaan is idhi walle iyo bille berri ridii heblaayahayd intaad soo qaadda waa xilli abaara ninkii tuwaakada cuni jiray oo guriga sodohdii baa lagu iibiyaa la yidhi oo lacagna waayo isagoo xaraaro xumi hayso islaantii u soo diray inay sodohdii ka soo amaahato waxaa laga sheekeeyaa inuu nin talyaanigii iyo ingiriiska xilligoodii ka ganacsan jiray dhalooyin dahabahoo yaryar intuu sii qaadu galbeedkaa geyn jiray nabi muxamed nin baa u yimid ninka nabiga u yimid abu muusa alashcari baa la odhan jiray wuxuu ku rasuulka ilaahayow yaman beeraley baanu nahayoo beerta waxaanu ku beernaa geeda aanu cabnay nabigu su'aalun buu weydiiyey war ma ku sakhraantaan buu yidhi oo wax ma iska kiin bedelaan oo sakhradda waxaa la yidhaha laba shay wixii keena adoo fircoonaa wixii ku seexiyeed kici weydo ee daal kugu rida oo waa futuur weeye waa nooc sakhradda ka mida wixii intuu ku kiciyo jidhkaagii normalka ahaa wax ka bedeloo nashaad kugu abuuraana isna daraagis weeye labadaba daraagis kugu keena wuxuu rasuulka weydiiyey rasuulka ilaahayow geedkaas maxaan yeelaa ma xalaal baa mise waa xaaraan wuxuu idhi amuskirun huwa fircooni ma lagu dareemaa wuxuu idhi haa nabigu wuxuu ku yidhi waa xaaraan iska daa kullu muskir khamr wa kullu khamrin xaraam kullu muskirin xaraam waa xadiid soo aroortay weeye shayga markaad xalaalnimadii xaraamnimada ka eegaysa waxaad fiirinaysaa wayuxillu lahum alayibaat wayuxarim calayhim alkhabaa'if waxaad fiirinaysaa shaygu ma khabiis baa mise waa ayib war macaano geel iyo qaad baa isku mida ya ma muus iyo qaad baa isku mida jaad iyo muus ma isku mid baa ma hilib adhi iyo qaad baa isku mida isku mid ma aha qaadku marka caafimaadka horta waxbuu u dhimaa calooshuu qallajiyaa maskaxda waxbuu u dhimaa taranka waxbuu u dhimaa oo waxa weeye wixii maaul xayaagi ama waxaad wax ku dhali lahayd baa waxaa la sheegay heblaayo intuu mirqaamay laba cagsi buu u shaqeeyaa waxaa ragga qaar markay mirqaamaan haweenkoo kaley noqdaan wayba dhadigaadaanba islaamaha uu iska agseexanu midna waxa weeye habeenka haddaanu xaaraan samaynin xalaal hadduu ku waayo islaan inuuna aragmaba joogi karaba waa laba cagsiba u shaqeeyaa qaadku markuu dhiigaagu barto mid baa laga sheegay heblaayo soo carar heblaayo soo carar heblaayo soo carar mise tagta iska joog buuri isla fahmaynaa wuxuu wiil hebel la yidhaahdo isaga difaaco warithadiisa ah oo xaafidulqur'aana ku dhali lahaa baa dhulka iyo ciidda galay heblaayay soo carar buuri markuu mirqaamay gabadhii maxay tidhi walle aniga iyo qudaanna la wada qabin qudaha miyaa taqaana adi kumaba soo gaadhee bahal qallalan oo baarixa kuu yimide ya iskaba tagtay iska tag buuri iska joog waxa weeye reeruhu burburiyaa waa mushkila ijtimaaciya wey carruurtaadii oo qatan baa waxoogaa lagu siinayaa dabadeedna markaasaad intiiba qaad ula kacaysaa bal waddaa keenaysa inaad qaad ula dhaqaaqdo nin baa wuxuu igu yidhi wixii kuugu xumaaya qaad kaa soo maray ii sheeg baan ku dha wuxuu yidhi reerkii baanu rarnayoo baadiyaan ahaynoo waan guurnayoo gurigii baan ka baxnayoo habeenkii baanu meel degnayoo tu balaayo ahoo qaad igu lahayd baa suuqa igu aragtayoo kuleetiga iska kay laalaadisayoo way i ceebayso dhulka igu jiidoo sharaftiiba iga xayuubis markaasaa waxaan is idhi walle iyo bille berri ridii heblaayahayd intaad soo qaadda waa xilli abaara ridii heblaaye intaad soo qaadda suuqa intaad ugu soo xidha islaantada in lacagteeda iska siiso wuxuu idhi ridii baan islaantii kala hadle waxay tidhi ma rida keliyahoo adhiga ka riman abaartaa lagu jiroon carruurta aad ugu caddaysid leehay hadday dhasho waad rabtaa inaad gaddo walle inaadan gadin bay tidhi walaalay rida aan gado bal waxna aan idinka soo miiso daynna aan iskaga bixiyo warqadaydaa kaa xigta bay tidhi ridaasood gaddo waa qoys iska cayrahoo magaalada ag degan oo adhi maahae geel iyo lo iyo waxa aan lahayn wuxuu idhi habeen barhkii markay ahayd baa intaan toosay baa waxaan damcay buu ihi ridii sida libaaxa intoon la dhaco inaan sii qaadoon magaaladii caawannimo ku dhoobaba oon gurigii hebel ku hor xidhoon subaxdii idhaahda waryaa iga iibinaya islaantaasi hadday soo toostaanoo lacagtii qaatay ha timaadeen ridii baan qaaday si aanay u ciin baan afka iyo sanka isku qabtay buu ihi xog ilaan hadday qaaq tidhaa islaanta way soo kaci way iga ridii adhigii intaan u tallaabsaday baan ridii la soo boodo afkiiyo sankaan ku dhegay buu ihi dagaalkii igu jiray iyo xarbihii ma xusuusan buu ihi warridu yayna kaa dhimanaysaan afka iyo sanka u hayey baan idhi buu ihi war balaaya ku dhacdaydu culusa mise dhig baan maagay oo socodsiiya wallaahi waaba bakti ridii carruurta loo lisi lahaa
in qaadka aad ku bixisidana u soo qaaday waaba bakti buuri xeeladaha qaadka un baa keeni kara waan celiyay buuri ridii intaan arigii dhex dhigay oo halkii ay joogtay dhigay oo wax seexda iska dhigaan subaxii idhi buuri baladiga dareeriyo markii la ridii waa bakti markaas aan imisaan wardiyay oo wadaad mu'minaan ahay waxogaaga aan wardiga ku akhriyahay rida aan iskaga bixiyo idaasow kaama waayn wata ahad aniga markii ya nin baa laga sheegay reer koonfura weli mayhi ilaa soo walxaalay tusaay ya soo ma aragtid buuriina hebelka hebelay annaga noloma soo daahay waad ogtahay reer hebel baan nahay waad aragtaa buu ridaadi waxa ku dhacay wallaahi billahi habeen dab hadaad muranta caruurta mid loo waay doona ya rida yaa dilay isagaa dilay muxuu haddana ku sheeganaya inuu welinimo qaato rabaa haddana ya inuu ridiisii welinimo ku qaato rabaa haddana qaadkaa keena xaaladahaas oo dhan qaadku wax badan buu keenaa qaadku wuxuu keenaa baa la yidhi cid adan baahidaada waxba u weydiisateen oo dhan inaad qaad wax u weydiisato dartii seediga intaad wacda inaad tidhaahdo qadaan laahay haaf bariisa waxaan ku gata ii soo dir lagama yaabo laakiin inaad tidhaahdo warseediyow maanta qayilkii baa naga xuna noo qaade aanu qayilne waa wax fudud weeye wax aad u fudud weeye ninkii tuwaakada cuni jiray oo guriga sodohdii baa lagu iibiyaa la yidhi oo lacagna waayo isagoo xaraaro xumi hayso islaantii u soo diray inay sodohdii ka soo amaahato oo sodohdii markay islaantii ka soo amaahanaysay islaantii ilaan way maqnaydoo dibadday ku maqnayde gabadhii oo gurigii gashay islaantiina ay albaabkii ay ka sii jeedo oy foorarsatay islaantii oo dibadda ka timid oo ay sii jeedda bay leedahay tuwaakadii miis isagiiyo tuwaakadii waa isku nooc weeye waa isku qabiil weeye ay tuwaakadii miis leedahay oo inay ka amaahato ka daysato ay rabto intuu aamini waaye is yidhi islaantaadii waa tan sii jeedee la hadalo ii kordhi ku dha jaqafo keliya ha igu dayna buuriga kordhi ku dha tuwaakada ii kordhi saasadohdii oo sii jeeda ayuu dabada ka qudinayaa u leeyahay naa kordhi dheh naa kordhi dheh naa kordhi dheh buuri naa xogaa noo biiri dha bahashu naguma filnee buu leeyahy waxaasi anshaxumadaasay leeyihiin waxaynu nidhi shanta islaamku ilaaliyey shantaba qaadku waa ku xadgudbaa maalkii wuu ku xadgudbay naftii waxaan nidhi diintii waa ku xadgudbay naftiina wuu ku xadgudbay oo caafimaad daruu keenay xataa bulshadii buu burburinayaayoo jaraa'imta dhacduu qayb badan ka yahay dadka islaynayaay in badan qaad bay isku dileen inta islaynaysaay in badanoo ka midii maxay isku dileen dee qaad bay isku dileen taaduguna waad og tahay aniguna waan ogahay waxa weeye marka carruurtaadii oo gaajaysan baad ula dhaqaaqi xogaagaad soo hesha inaad ku qayisho qaad baa keenaya waxaan marka leenahay caqligaaga marna waa tanaad mirqaansan tahay markaad waxoogaa qaadato marka aad waxoogaagaa weydana murugaad u dhimanaysa waa qosol iyo qamuumyo isku xiguu keenayaayo caqligaagi wax badan buu ka bedelaya maanta markaad faraxsan tahay kuu baraxan tahay ninka balwadda le baa yaqaanee markay kuu baraxan tahay aad faraxsan tahay haddii awrka geelaaga u weyn keen lagu yidha waa iga fii sabiilillaahi baad leedahay laakiin hadhow markaad meesha ka kacdo hor iyo awrkaygi talow maxaan ku bixiyey adaa dib u murugoonaya waxaa laga sheekeeyaa inuu nin talyaanigii iyo ingiriiska xilligoodii ka ganacsan jiray dhalooyin dahabahoo yaryar intuu sii qaadu galbeedkaa geyn jiray isagoo laba dhalo oo dahaba wata ayuu qaad cunay intuu galbeed galay markuu bahalkii hareeriga ahaa ka dhargay yuu mirqaamay labadii dhalo oo dahabka ahaydna halkanay u yaallaan wuxuu yidhi dhaladaasaan iibiyey waxa weeye cokod iyo saan baan ku iibiyey harkaan ku iibiyey harkii sonkor baan siiyey sonkortii milix baan siiyey milixdii dhar baan siiyey dharkii adhi baan siiyey adhigii geel baan siiyey geelii 100 buu noqday halkaasu doollu daaqayo 200 halaad buu isu bedelay tii kalena 200 halaad buu ka sameeyey dhaladii way taalaaya geela uu dhaqayo dhani dhaladaasu ka iman doonaa dhaladiina way hor taalaa weli saan baan siiyey milix baan ku celiyey hargeysaan geeyey barbaraan ka soo gaday waan soo laabtay xaggan laascaanaan u bedelay xagganaan ka soo geliyey geel baan buuhoodle kaga gaday adhi baan balad xaawo ka soo siiyey saasuu isugu celceliyey wuxuu wadaba 4 geel oo dayr joogo oo doollo joogo awrtii qooqan tahay buu ka samaystay labadiina wuu hayaaya labadii awr baa isku soo boodayoo labadiisi awroo isku soo booday buu tasawurtay oo dududududuu yidhi buu labadii hal isku dhuftay
deedna wuu ka kacay meeshiiba labadii geelee la dhaqay away labadaa dhal uu ka samaynayey waxaasi waa khayaaliga maskaxdiisii baan joogina uu qaadku abuuro wey maxamed xareed waa nin odaya wuxuu iiga sheekeeyey inuu carraabay isagoo dadkaa tuulooyinka joogi jiray ahaa weligii qaad cuninbu intuu tuulo yimid baa qaad loo qaaday wuxuu yidhi xogaa baan ka cunay oo waan carraabay oo galabtii markaan maqaaxisii marnaba 2 koob oo shahaan ku dhuftaa show tan iyo badh baan tegay oo cirkaaban maraya gurigii markaan habeenkii u hoyday yaa islaantii iyo carruurtii reerkii waa hurdaan go weyn oo shaalana waan wataa buudho dhaxanta ka huwaday islaantii iyo carruurtii markaan arkay dameer xaabo halkan lagu rogayna wuu yaallaa buuhi miici miidhan oo galool iyo qansaxa wuxuu yidhi markaan eegaybaa dhaxan baa i qabatay dabkii baan saluugayo intaan dameerkii xaabadahaa soo qaaday baan hal mara dabkii dul dhigay buuhi dabkii baa hawada galay ma joogo dee ma joogo caqligiisi ma joogo dabkii markuu hawada galay baa waxaan ku fikiray go'aygan shaalkaa intaan dhakada dabka ka saaray inaan hoos ugu soo xajiyo kuwii shaalkaha markaan dul saaray uu jagagagac yidhi uu dhexda ka booday dabkii yaani buu niyow maad xajisidoo gacmahaan la galay buuhi halkaa markay maraysayba islaantii kacday oo islaantii baa biyo meel yilay ku sii daysay oo 9kii carruurta ahayd islaantii baa ii badbaadisay buuhi waxaan weligay dhaqan jirayna oo aan dadkii ahayn oo duunyo ahaa wixii xaraysnaa ee noolaa maahe wixii mood iyo aan dhaqaale haystay iyo alaabna halkaasaan ku burburiyey buuhi qaar qaadaa burburisay buuhi oo casar la ii qaadeenoo tuulo ka carraabaya miyir qab miyaad u taqaanaa taa adigu marka ninka aqalkiisii gubahaya oo 9 carruur iyo hooyadood jiifaan oo dabka albaabka kaga ololinaya oo intuu weligii soo dhaqanayay 30 sannadood halkaa ku waaya hal habeen ninkaasi hadda uu dhintay allah u naxariistay markaad tidhaahda maxamedow qaad wax alla wuxuu hayuu kugu dhufanaya wuu ka xanaaqi jiray markii dambe wuu ku khafiifay odaygii qaadku marka wax wanaagsan maaha diintu u daran yahay oo caqligu u daran yahay oo wadajirku u daran yahay oo nabadgelyadu u daran yahay oo war waxaynu inagu leenahay maaha waxani inagu ma lihin ma beeranno ma naqaano alla ka cabsina maaha ninkii kugu yidhi waa alla ka cabsi qaad been buu kuu sheegay ninkii kugu yidhi qaad baa alla ka cabsi keena been buu kuu sheegay dadka wanaagsan ilaahay way ka cabsan jireen iyagoon qaadna cunin